Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelka Baro ICT IT casharadii ayaa inoo socday. Halkaas ayaan kasii wadi doonaa hadduu ila yiraahdo. Maanta casharkeenu wuxuu yahay window maaragtay iOS ahaan sidee loogu shubi karaa VMware-ka. iOS-ka wuxuu kuu sahlayaa waa window diyaarsan oo isla markii ka fudud kii hore aan process badan aan mari jirnay. Kan si toos ayuu kuu furaya marka ila soco iyo qaabka loo sameeyo. VMware-keena waa kana mar hore waxaan dhigi jirnay new virtual machine laakiin hadda waxaan dhahaynaa si toos ayaan window-gan meesha noo yaala ayaan tagaynaa. Aniga wuxuu ii yaalaa C kadibna Asus Mediatek. waad ujeedaan kii aan hore ugu soo shubnay kan iyo kan ayuu ahaa maaragtay qaabkiisa uu ka duwan yahay. Kan CD ahaan ayuu usoo akhrisanaya process dheer waaye waqti badan uu qaadanaya. Kan laakiin waa iOS si toos ayuu ugu shubaya. Marka aan guda galno iOS-ka double click ayaan ku leenahay. Kadibna wuxuu ku leeyahay meesha aan maaragtay ku dhigayo sheeg halkaas ayaan ku dhufanaynaa. Kadibna waxaan leenahay uusi kansiyo si toos ugu shub ama luwa uusi kansiyo. Marka waxaa laga wadaa halkaas dadka Englishka new folder macnaha aan samaysanayna new folder halkaas ayaa ku dhufanaysaa. folderkaas ayaad ku qoraysaa tusaale ahaan barasho cashar kadibna click ayaa ku leedahay kadibna okay ayaa ku leedahay. Kadibna wuxuu kuu keenayaa meesha uu ku dhigayo C Asus Mediatek barasho extract aan leenahay marka. Kadibna si toos ayuu window-ga extract ugu sameynaya iOS-ka kadibna si toos ayuu noo soo dhigayaa VMware-kan kicinaynaa si toos window-ga waa noogu jiraa. Meeshii la marayay meel dheer halkaan ayaa ka fudud oo maaragtay iOS ahaan ayaa loogu shubayaa. Marka waa ka fudud yahay ila soco. wuu dhameynayaa hadda marka si toos ayuu noogu shubay already. Marka waxaan tegaynaa faylkii aan meeshii aan extract aan ku sameynay barasho cashar ayaan ku sameynaysaa. Marka wigiskan ayaa kicinaysaa kadibna kan oo saddexda ayaad ku dhufanaysaa. Kan ayaa ku dhufanaysaa saddexda qoranta kuwan kan waa hal saas aad ku fahmaysaa. Kadibna si toos ayuu window-ga wuxuu usoo dhigayaa VMware-kii. Marka meesha memory-ga aan bedelaynaa 2GB aan ka dhigano. Intana waxaan ka dhigaynaa 4 processor-ka halkaas aan ka dhigno 2 kadibna okay aan leenahay. Si toos ayuu ugu shubaya marka window-gii. Rabtaa in virtual machine markaas uu ku kaco yes kadibna isla markii toos ugu shubaya. waa ka fudud yahay waa ka dhaqso badan yahay marka waan ka diyaarsan yahay window diyaarsan oo iOS waaye. Asus ayuu maaragtay kusoo kacaya laakiin kadib maaragtay waxa user ayaa samaysan kartaa ama si dhan aad bedeli kartaa oo waxaad ku maaragtay ku qoran kartaa waxa rabtid. Marka window waa noo diyaarsan yahay waana dhameynay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.